waxaad soo dhigtaa videos waxaadna rajaysaa inaad hesho millions ama thousands of views laakiin videoskaaga ma gaaraan hitaa 100 ama 200 oo views dhibkuna ma aha in contentigaagu hun yahay ama algorithmka ku neceb yahay dhibku waa in adiga si qaldan u isticmaalayso ama u fahansan tahay YouTube-ka laakiin videogan maanta waxaa kula wadaagi doonaa 5 YouTube settings oo ka qarsan boqolkiiba boqolna la hubo in YouTube channelkaaga wax badan ku bedeli doonaan YouTuberska waaweyn adeegsadaan settingskan mid kamid ah haduu ka qaldan yahay ama aad hore u soo qaladay waxay noqon kartaa halbowlaha views la'aanta the more aad fahansantahay sida algorithmskan u shaqeeyaan waa the more aad opportunitieskaaga ay badnaan doonaan ama aad helitaanka viewska uu ku sahlanaan doono so let's get started. So the first setting oo ku caawin doono maanta waxa waaye channel category ama categoryga channelka niche-kaaga categoryga adiga aad dooratay. So marka aad YouTube studio-ga aad soo dhax gasho setting-gaaga aad aado kadibna waxaad dooran doontaa upload default ama haddii aad video hadda soo dhigayso oo kale aad hoos u degto meeshaas ka heli doontaa. So hadda marka maadaama niche-kaygu uu yahay YouTube growth ama educational waxaad dooran doonaa education. So adiga niche-kaaga waa taqaanaa categoryga laga rabo inaad doorato adiga waa so niche-kaaga categorygiisa halkaan door. So tan waxay ka caawin doontaa in algorithmka uu dhaxdhigo categorygaaga saxda ahaa channelkaagana sidaas audienceski lagugu talagalay ay kugu daawadaan. So tan waa very important waaye channelkaagana wax badan bay ka bedeli doontaa. So the second setting waxa waaye oo very helpful ah isbedel badan ka arki doonto waxa waaye AI use ama altered content. So labada option lagu siiyay hadii aad doorato yes tan waxay ka dhigan tahay adigoo u sheegay YouTube-ka waxaan ahay AI channelkaygana waxaad ku launch gareysaa ama ku promote gareysaa AI-ska. So tan waxay ku keeni doontaa in hadii aad short soo dhigayso ama long form video soo dhigaysaba videoskaaga yani human-ki saxda ah loo bandhigi waayo. So midaan waxa kugu talin lahaa inaad doorato no. So the second setting waxa waaye intaan halkan ka soo dhamaan waxa waaye not made for kids. Tan clear waaye qof kasta oo YouTuber ah ama content creator ah midaan boqolkiiba boqol wuu ogyahay because hadii aad dhahdo videoskayga yes it is made for kids hadii aad dhahdo ama channelkayga ama videoskayga waxa looga talagalay caruurta tan waxay channelka u keeni doontaa in videoskaaga la dhigo titleka caruurta kadibna uu la mid noqdo adigoo garantaada dhaxdhigay kasaalada hoosteeda. So tan waa very important hadii aad dhahdo not it is not meant for kids hadii aad dhahdo channelkaaga sida aadiga ah waxa la tusin doonaa dadka waaweyn aadiga 18 iyo wixii ka sareeyo. So waa rajeynaa inaad mar horeba soo dooratay midaan. So the second setting waxa waaye oo super helpful anigana zaid u jecelahay waxa waaye end screen waaye tan waxay i keeni doontaa in for example dhalinyarada badankoodu waxay sameeyaan in YouTube subscribe button ay soo qaadaan oo halkaan end screen kan soo dhigaan laakiin maanta adiga waa ka aqli badan tahay dadkaas because of hadii for example qofka dhameysto videogaaga isla markiiba marka videogaaga dhamaado waxaa la tusin doonaa videoga kuwiga videogaagan kadibna sidaas ku daawado qofkan labadii video waxa hal videos u bedeli doonta 10 ama ka badan views taasna waa waxa algorithmka uu jecel yahay. So midaan waa super helpful waaye markaan elements aado videos aan dhaho saddex option waaye most recent video best for viewers iyo use specific video waxa kugu talin inaad doorato specific video because adiga midka rabto dooranayo for example kan aan doorto sidoo kale waxa ka dhigi karaa waqtiga ama saacada videogan thumbnailkiisa uu soo muuqan doono. So inta badan waxa laga dhigaa marka videoga dhamaashadiisa adiga 5 minutes ama ay ka dhiman tahay oo kale baa la soo muujiyaa. So marka videogan dhamaado kaliya qofka iskama baayo waxa la tusin doonaa thumbnail kan kale marka qofkan kale gara videoga sida ku daawada waxa hal viewer u bedeshay intuu adiga 5 or 10 views waxaan algorithmkana midaas aad u jeclay because of algorithmka waxa uu rabaa sticky content not only in videos kaaga la daawado. So muhiimad waa in channelka waqti badan lagu qaato tan waa super helpful waxaana kugu talin lahaa inaad every time adeegsato trigan end screen la'aan video maanta kadib uma malayna inaad soo dhigi doonto. Last but not least setting ugu muhiimsan aan kugu talin lahaa inaad hadda iska saado hadaadan horey u soo sameynin
dhalinyarada badankoodana aanay isticmaalin waxa waaye channel tags ama channelka keywordskiisa. So halkan aniga hore ba tags usoo geliyay. So midaan waxa kugula talin lahaa inaad hadda geliso valuable keywords oo channelka related ah. For example, hadduu channelkaagu yar yahay ama gordho aad samaysay, tan waa super helpful waaye because of algorithmka isla markiiba waxaad u sheegtay waxa uu channelka ku saabsan yahay, waxa uu yahay dhammaan keywordskan aad halkan gelisay waxay u taagan yihiin in channelkaaga ay u sheegaan algorithmka waxa uu yahay, kana ahay qofkaas ahay waxaana soo gudbiya. So tan waa super helpful. So aniga mar hore soo geliyay laakiin waxa arkay dhalinyaro halkan gelinayso oo kale. For example, adee qof famous ah ama shay aan ah adiga channelkaan related lahayn. So tan waxa kugula talin inaad hadda iska saado keywords channelkaaga la xiriirana aad geliso. So videoga halkaan ku soo gabagabeyn doonaa. Haddii videogan waxa uu ka faa'iiday commentiga soo qor wixii talo ah, sidoo kalena soo subscribe garee. So inta ku kulmi doono videogan video ku xigo. Peace.